cashiradeen inoo socday saaka waxaan qaadanaynaa cashir cusub oo ciwaankiisu yahay simple interest intayna cashirka gudagelin waa maxay simple interest aan isweydiino simple interestigu waxa weeye waxa loo yaqaano ribada gaalada loo taqaano dheefta fudud marka ribadu sidaynu ogsoonahay diinta islaamka inoo sheegtay waa xaaraan mana bannaan haddaba waxaynu qaadanaynaa cashirka ku saabsan ribada iyo sida loo xisaabiyo waxaynu qaadanaynaa si aynagu iskaga difaacno islamarkaana uga taxadarno ribada sababtaa awgeed ayaan baranaynaa ribada iyo noocyada tahay iyo sidaynu xisaabin lahayn iyo sida haddii ribo ay kusoo gasho aad u garan lahayd ama lagu saarayo ama shirkad u tag ama bangi u tag aad u kala garan lahayd haddaba simple interestiga sida loo xisaabiyo ayaynu cashirkan ku baranaynaa markastana ila socda maskaxda ku haysaan simple interestigu inuu xaaran yahay marka waa maxay simple interest ciwaankii ku bilaabayaa ama what is the simple interest si aynu fahanno dhexitaankan baynu ugu qeexanay we borrow some amount of money waxaynu soo daynsanaa ama soo qaadanaa xaddi lacageed from the bank inagoo kasoo daynsanayna kasoo qaadanayna bangiga this borrow amount xaddiga lacagtan aynu soo iibsanay hanaynahay soo amaahanay ayaa waxaa loo yaqaanaa scholarship loogu yeedhaa as a long dayn right however at the time of returning waqtiga aynu dib u celinayno the loan dayntii aynu soo qaadanay to the bank bangiga dib loogu celinayo we have to buy back waa inaan gadaal bixinaa ama dib u bixinaa an amounti xaddi lacageed somewhat bigger than loan kaasoo ka yara weyn ama ka badan dayntii hore aynu qaadanay bangiga ka qaadanay and note fiiro gaara this additional amount xaddigan lacageed ee dheeraadka ah aynu dib u bixinayno ayaa scholarship waxaa loogu yeedhaa as a simple interest inuu yahay dulsaar marka ribo isku soo duub bangi markaad tagto ee aad lacag ka qaadato lacagtaasi uu kugu maalgeliyo bangigu ama aad uga daynsid aad uga amaahato wuxuu ku siiyaa lacagtaa go-aan wuxuu kuu qabtaa muddadaas aad soo celinayso wuxuu kuu sheegaa inay ku dul saaran tahay xaddi lacageed oo simple interest rate loo yaqaano oo ah ribo marka inta xaaraanta aynu sheegayno masalan $500 baad ka qaadatay wuxuu ku yidhi 20% ayaa ku dul saaran waxaad soo celinaysaa 2 sano ka bacdi intaynu xisaabinaaba ah 20% maxay noqon doontaa dhibkood ma 500 aad ka qaadataa bangiga ku soo celin mise waxaad ku soo celin 500 wax la socdaa طبعا waxaan soo celinaynaa 500 ay la socdaan intii muddada ay loo qabtay intiina dul saarnay ilaa 20% ahayd markaa saaran haddaba si taa xisaabino formulada aynu isticmaalayno simple interestiga formulada aynu isticmaalaya waxay tahay I oo aynu soo gaabinay interestiga ay tahay in raadinayno dulsaarka B waa principal oo lagu dhiftay R to reader T or time haddii ereyadani maxay yihiin interestigu waa dulsaarkii ama ribadii aynu xisaabinayno principalku waxa weeye xaddiga lacageed ee aad ka qaadato bangiga ama lagugu maalgeliyo ama lagu siiyo bangiga taala ayaa loo yaqaanaa principal marka waa dheeftii kale bangiga rateku waxa weeye boqolkiiba intay ku dul saaraan boqolkiiba 20 noqon kartaa boqolkiiba 30 noqon kartaa boqolkiiba 10 noqon kartaa oo yaraan loo xisaabinayo time waa waqtiga iyo muddada lagu qabto marka waqtiga iyo muddada lagu qabto haddaba saddexdaan aan isku dhufano ayaan ardayga ku helaa simple interestiga marka si aynu u fahanno aynu tusaale bixinno oo ka shaqayno